madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan gobolka Sool siiba deegaanka Dhumay oo laba beelood oo walaalay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac badani uu halkaas ku dhex maray waxaana uu madaxweyne Muuse ku baaqay nabadgelyada laga shaqeeyo isla markaasina ay beel waliba dhankeeda ammaanka adkayso madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in waqtigan loo baahnayn colaadda ka taagan deegaanka Dhumay in la siyaasadeeyo balse waxa uu sheegay cid kastoo gurmad nabadeed wada inay xukuumaddiisu ogoshahay waxaan ugu baaqaynaa mar laba in xabadda joojiyo aqalku shaqeeyo Soomaaliland gurmad hore waa ku gashay haddana way ku galaysaa waxaan ku dadaali doonaa wixii culimo iyo aqoonyahan iyo madax dhaqameed iyo talaqabeed uu gurmado la isku geeyo gobolkaasoo si nabad looga dhaliyo waxaan ugu baaqaynaa dadka halkaan jooga ilaahay inuu khilaafka ka saaro colaadda ka jabiyo oo nabadgelyo kusoo dabaalo maalmahan waxaan ka maqlay idaacadaha dad badan oo ama qubajoog ama siyaasiyiina ama dalal kaleba kasoo hadlaaya oo arrintaas siyaasadeynaya Soomaaliland horena tacab badan bay gelisay laba sanood bay ka joogay haddana way xoog badan bay gelisay waxba kala harmayso si loo noqday lahaa ciddii nabadda wax ka taraysa madax dhaqameed ee islaax wadaan way ogoshahay ciddii caawimo bini'aadanimo dadka barakacay iyo kuwa dhaawaca ah tarsana waa ogolahay laakiin waa ogola cid siyaasadaysa oo ujeedooyinka ka dhaxaysta maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakadda caalamiga ee Harwanaag News Hargeysa.